sheekh waxaan ahay gabadh waxaan ku riyooday anigoo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la socda oo dad fara badan ay la socdaan laakiin aniga waxa ii dheeraa inaan la hadlayay sidoo kale uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ii sheekeynay alxamdulillah riyada nabiga alayhi salaatu wasalaam horaynu soo sheegnay qofka nabiga waxa weeyaan ku riyooday risqi waasic hadduu guur la'aan jirto waa guursanaya mashaakil fara badan oo haysan ilaahay subxaanahu wa ta'aala xalligeeda waa u fudaydinaya la hadalka nabiguna alayhi salaatu wasalaam waxay sheegaysaa qofka in aqoon iyo xikmad iyo in ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhawaado ilaahay u fudaydinayo haddii ay qof dumara ay tahay xaamilo tahayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu u fudaydinayo waxa weeyaan xamligeeda haddii ay xaas leedahayna risqi iyo faraj waxaan ku darayaa qofka haddii uu ku riyoodo nabiga alayhi salaatu wasalaam oo si sax ah u riyoodan uu nabigii yahay alayhi salaatu wasalaam dhowr arrimood baa la gudboon qofkaasi waxay yiraahdaan culimadu waa inuu tahaaradiisa hada jeer ilaaliya sunnaha nabiga alayhi salaatu wasalaam oo hada jeer ilaaliya ilaahayna uga mahad celiya riyada wanaagsan ee nabiga aragtidiisa oo cid waliba tabannaynayso cid waliba aan helin inuu ilaahay uga mahad celiyo ilaahayna jalla wa ala inuu uga mahad celiyo waajib wallahu a'lam